Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Hore waxaan usoo baxnay rulkeeni koowaad oo lagu helayay BI amba particular integralka. Rulkooda wuxuu dhahayay yani alpha x kaaga haddii r into x kaaga haddii kula mid tahay e power alpha x plus beta haddii kula mid tahay sidee yani BI gaaga loo helaa. Rulkan labaad wuxuu leeyahay haddii r into x kaaga ay kula mid tahay cos into alpha x plus beta ama sin into alpha x plus beta haddii ay kula mid tahay sidee loo helaa marka ybx kaaga. Waxaa ku leeyahay 1 divided by f into d square oo kula mid oo ku dhacsan operating on cos into alpha x plus beta. d da marka waxaa ku bedelanaysaa mar walba minus alpha square ku bedelanaysaa marka minus alpha square. Teeda kale marka waxaa mar walba iska ilaalisaa minus alpha square iyo minus alpha whole square labadaas mar walba ay kala duwan yihiin. Hadda inta haddii aan ku dhaho kale minus 3 square ka shaqeey ku dhaho haddii aan ku dhaho meeqa waa minus 9 caadi waa. laakiin haddii lagu dhaho minus 3 whole square oo kale haddii lagu dhaho ka shaqeey waxay noqonaya plus 9 noqonaya marka. So marka the square is not whole, it is only for alpha. Marka waxaan leenahay d booskeeda waxaan ku bedelanaa minus alpha whole square aan ku bedelanaa marka alphadaana waa inay 0 noqon. Matalan problemkan oo kale haysanaha oo kale. Problemka marka haysano kale waxaan rabnaa inaan raadino particular integralkan amba y into b and y sub bx inaan raadino oo kale. Intaan helin koor marka ugu horeyn functionkan waxa u diyaarisaa in the form of symbolic form. Symbolic form ka xataa anagoon aadin dhinaca kale aan ka dhigana symbolic form matalan aan ku hormarno particular integralkan anagoo meel kale aan aadin maanta. Waxaan leenahay 1 divided by d square plus 4 ayaan haysanaa marka 1 divided by d square plus 4 because y double dash maxay u dhigmataa d square y oo loo qeybiyay dx square u dhigmataa intaan waxay kula mid tahay d square ku kula mid tahay marka that's why aan d square u qaadana marka d square plus 4 oo ku dhacsan 6 inta dhiganayna cos x inta noo yaala marka. Okay, x horgelis marka maxaa loo yaqaanaa marka x horgelis waxaa loo yaqaanaa alpha loo yaqaanaa. Horgala x maanta waa imisa marka waa 1. Horgala x waa meeqa waa 1. 1 kaas waxaan ku bedelanaa marka d ana ku bedelanaa marka. Laakiin 1 ka inuu noqdo minus 1 square inuu noqdo macna. Waxaana 6 oo ku dhacsan 1 divided by minus 1 square. Minus 1 square not minus 1 whole square plus 4 oo ku dhacsan cos x. Okay. halkan markuu taagan tahay marka 6 divided by minus 1 square and 1 square minus 1 square waxa weeyaan minus 1 plus 4 maxaa kaaga soo baxayo 3 caadi kaaga soo baxaysa marka kaaga soo baxayso 3 caadi halena 3 cos x. Okay, 3 6 sada isku qoyn waxaa soo baxayso 2 cos x so marka particular integralkan ama bi intaan kula mid tahay maanta marka particular integralkaaga intaas kula egtaa. Okay, hal mar marka aan laabana bal aan xasuusana asagana complementary function kan marka complementary function marka dhowr example caawin ka sameeyna marka examples hore aan sameeyno way ka badan yihiin kuwa hadda aan sameeyno and only I think in saddex xabaro oo soo sameeynay kadamba particular integralka hadii aan soo galnay example ba xalneeno complementary yani complementary factor kan soo saarnaa laftirkiis marka een ugu horeyn maxaa sameeynaa waxaa u qoraynaa qaabka loo yaqaano symbolic form. Symbolic form kiisu waa nooc marka waa d square plus 4 whole into y waxay kula mid tahay c. Then waxaa u qoraynaa marka wuxuu ahaa auxiliary equation. waxaana marka d square plus 4 waxay kula mid tahay 0 kula mid tahay maanta not 0 ma la mid ah qiimaha xisaab maanta waxay la mid tahay cos x inta waxay kula mid tahay cos x laakiin complementary function marka shaqeynayso wax macna ku sameeyaan macna cos x sidaan because scientific ma gelinayso waxa uu kaliya ka shaqeynaysaa d square plus 4 oo kaliya ka shaqeynaysaa marka waxaana marka 5 then 3 d square horgaleed waa 1 d power 1 anaga maqan qiimihiisu waa 0 d power 0 qiimihiisana waa 4 horgaliis macna then waxaana marka waxa inoo soo baxay marka x1 waxa inoo soo baxay 2i x2 waxa inoo soo baxday minus 2i d marka waxay kula mid tahay marka 2i, minus 2i. Okay, haddii qiimaha helna marka sidee loo qori jiro complementary factor kaaga marka complementary factor kaaga waxa loo qorayaa marka e power alpha x omen alpha maanta ma haysatid marka alpha maanta ma haysan alpha dina waa maxay marka waa 0 waxaana e into alpha dina oo ah 0 into x oo ku dhacsan c1 cos 2x plus c2 sin 2x oo kula mid ah e power 0 marka wax waliba oo powerkeedu 0 yahay maxay noo la mid ahaa jirta marka hore waxaan u soo baranay yani qaacida dheeysa jirtay wax walba powerkeedu 0 yihiin waxay kula mid tahay 1 halena marka c1 cos 2x plus c2 sin 2x inta marka waxaan la mid marka
complementary function keena noola mid marka complete solution keena marka y c maxay noola mid tahay marka complementary factor kaaga oo lagu daray particular integral kaaga marka oo kula mid ah complementary factor meeqa helnay c1 cos x plus c2 sin x plus okay meeqa helna particular integral keena 2 cos x plus 2 cos x okay plus 2 cos x so marka rulka labaad qaabkaas aan ugu shaqeyn doonaa insha Allah taala oo lagu helayo particular integral keen rulka labaad wuxuu kaga duwan yahay kaliya meeshii alfadeeda waxa ku bedelanayo kaliya yani meeshii dhigeeda waxa ku bedelanayo kaliya minus alpha square alfada kaliya square lana minus kana horgulo mar uu yahay so marka let us do one more example okay in next video because video mar walba dheeraad ugu adkaanay inaa soo dhigo YouTube insha Allah aad ma santiin